aad baa u mahadsantahay runtii heerka waxbarasho ee Cumar Al-Faaruq marka la yiraahdo waxa weeyaan dugsigan marka laga soo bilaabo 2018 aaskiisii lagu aaso magaalada Cadaado waxa la oran karaa wuxuu ku soo aaday xilli aynan waxbarasho la taaban karo aynan ka jirin deegaankan magaalada gaar ahaan Cadaado magaalada Cadaado iyo nawaaxiga ku xeeran isla xilligaas waxa jirtay iskuulkan magac ahaan inuu faafay dabcan mu'assasada ragga dhalinyarada qurbo joogta ah oo aasay inay faafeen oo magaalooyin fara badan mudug iyo galguduudba ay ku faafeen heerarka waxbarasho iskuulkan waxa weeyaan waa iskuul hoose dhexe waaye fasalka sidaad ayaa looga baxaa wuxuuna gaaraa dugsiga sarena waxa weeyaan waa qayb kale marka la yiraahdo waxbarasho ahaan tayo ahaan runtii de waxa lagu xusuustaa waa sanadkii hadda la soo dhaafay waa iskuulka galay kaalintii top 10ka 10kii arday u sareysay qaranka Soomaaliya iskuulkii ardayga ku lahaa weeyaan Cumar Al-Faaruq Cadaado marka waxaan dhihi karnaa waxa weeyaan waxa meeshan ka jirtay waxbarasho xilli soo bilaabatay ilaa haddana isla sidii loogu talagalay u socota saacidaadda labada waji ee saacidaadda iskuul ugu baahan yahay waa dhinaca maxaa la yiraahdaa qarashaadka ama salariga iyo dhinaca manaahijta iyo qalabka maxaa la yiraahdaa barakaaliyaha la yiraahdo tan manaahijta dabcan hadda waxa lagu shaqeeyaa waa manhajkii Soomaaliga ahaa ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay soo dejisay ayaa min fasalka koowaad ilaa fasalka dugsiga sare form 4 lagu dhigaa tan kale maxaa la yiraahdaa saacidaadda dhaqaalaha ah ee ku saabsan xagga macalinka yaa wax siiya macalinka waxa saacida mu'assaso iftiin la yiraahdo iskuulka Libsa ayadoo Libsa dhistay dhalinyaro qurbo joog ah run ahaantii hay'ado gaar ah ay ku tiirsanayeen jirin laakiin galaangal dadka bulshada deegaanka ah wax ka xalisa inta badan de taageeradaas oo ah taageero maxaa la yiraahdaa shakhsiyaad ee aan ahayn taageero dawlo ama taageero hay'ad waxa loo baahan yahay saacidaad dheeraad ah loo baahan yahay muuqata waayo waxa weeyaan maanta qof jeebkiis oo kula mid ah waxa u doontay oo war macalinka la saacido macnaha aad maanta barnaamij yar waxbarasho ku sameynaysid haddaad bil u tagtid haddaad 2 3 4 5 haddaad sanad wax ka qaadi sanad kale qofkaas wuxuu noqonayaa waa dareemaysaa marka saacidaadaas dhalinyaradaas qurbo joogta ay isku dayaan ma saacidi karto waxa wax lagu wadaana waxa weeyaan waa gacan tolasho iyo maxaa la yiraahdaa war la isla qabto iyo dhiirigelin waliba waxa ka sii daran hadda waxa saameyn baan ugu sameeyay barnaamijkii coronavirus-ka wuxuu baabiiyay dhammaan wixii yaraayo macalinku helayay way baaba'een waxa la oran karaa maxaa la yiraahdo waa waxa la isku soo wada waxay ahayd rakarooni